وهيك دعويان لما مساعد في المناسبة أنا بلارن المساعد في كل قصة من قبل مجال كوبنهاجن يا عاصمة دولة الدنمارك يا هيد مد وهانتي أرضها dugsiga sare ama wax loo yaqaan Ingiriisiga ee dalkan Denmark ay ku talinayeen soo ruuxantii waxay xaflada dadka badan ay soo diyaariyeen guddiga masaajidka hadda waxa garabkayga taagan kamid ah waalidiinta ama qaban qaabiyaasha munaasabadaasi qaar carab bal ugu horeyn dareenkaaga wada wallahi dareenkayga lama koobi karo galabta aad buu dareenkaygu u wanaagsan yahay wax yar oo hadal maadaama horta aad mahadsan tahay Home Cable TV maadaama aad ugu soo dhaweysay aad iyo aad u mahadsan tahay galabta farxadeeda lama koobi karo sanado badan oo soo tagtay munaasabada noocan oo kala maxaa soo ran kartaa farqa u dhaxeeya munaasabadan iyo munaasabada kale hal mid ayaan kula dardaarmayaa waalidiinta degan caasimadda Denmark Copenhagen waalidiintaas oo ah maanta annaga inteena muslimiinta halkaas koofiyada qaato ku qalin jibisay masjid tawxiid bay ku xiran yihiin masjidka in carruurta lagu soo xiro baabuur baa hadda baabuurta qaar baa gaaladii waxa weeye ku dhex jiro muslimiina qamrigii bay cadahayaan wax walba ay sameeyaan iskoote bay galayaan marka waalidiinta waxaan ku talinayaa in lagu soo xiro masaajidka tawxiid aad iyo aad